Assalaamu calaykum. Ku soo dhowaada mowduucyadani mowduuc ka mid ah oo ku saabsan xikmadaha. Xikmadahan ayaa sida tan ku bilaabanaya. Asxaab waxaa ugu wanaagsan mid marka uu kaa arko khayr faafiya, markii uu cayb kaa arkana astura, markii ay adduunka kuu qosashana aan ku xaasidin, markii ay adduunka ciriiri kugu noqotana aan kaa tegin. Qofkii aan ka cabin badda tijaabada, saxarooyinka noolnool ayuu oon ugu dhimanayaa. Noloshu waa dugsi, macallinkeeda uu yahay zamanka, casharadeeduna ay yihiin tijaabo. Hadday adduunyadu ahaan lahayd mid fudud, sabarka muusan ahaadeen irid ka mid ah iridada jannada. Waxaa lagu yidhi axad ka mid ah dadkii wanaagsanaa, waa maxay sabarka wanaagsan? Kadibna waxa uu ku jawaabay, in lagu imtixaamo, qalbigaagana uu leeyahay alxamdu lillaah. Cayb ma ahan inaad jacayl u qaaddo qof bini'aadan ah aan ku habboonayn in la jeclaado, laakiin caybta iyo doqonnimada ayaa ah inaad joogtayso jacaylkiisa. Markii ay badato in lagaa sheekeeyo ayadoo lagu ammaanayo ama lagu caayayo, waxaad xaqiijisataa in lagaa mashquuliyey wixii hareerahaaga ahaa, darajo ay gaareen in ay ka tageen waxyaalihii quseeyey, isla markaana ay aad u danaynayaan waxyaalihii ku quseeyey. Haddaba waxaad gaartaa guushaada, una daay sheekada ha isaga raaxaysteen.